luqadda markii af Soomaaligu markuu luma diintii baa luntay waxaa lumay dhaqankii waxaa lumay hidihii waxaa lumay wax badan waxaan u diray qayladaan dadka Soomaalida meel kasta aan joogayna adduunka waan u diraa marka koobaad luqadda Soomaaliga lumaysa shacabka Soomaalida shucuubta daciifka ka mid yihiin xagga dhaqanka iyo luqadda carabtu waa la mid aniga iskuul baan lahaa 45 jisadood baa dhigan jiray laba Turkiya oo iskoolkayga dhigato oo af Swedish ku wada hadlaysa ma jirin af Turki way ku wada hadli jireen laba Soomaali af Soomaali ku wada hadlaysana arkimaysid laba Bosniyaan oo af Bosni waxaan ku wada hadlaysa arkimaysid laba Hindi oo aan Hindi waxaan ku wada hadlaynin wiishka hadda aan soo raacnay waxa ku jiray laba Soomaaliya oo sujuu ah oo af Soomaali ku sheekaysanaya iyo Hindidii af Hindiga ku hadlaysa afindigi Kenyaatiga afindi ku sheekaysanayaan Soomaaligi walibana ma taqaana dhul Soomaaliyeed aan fogeynba waabatan Gaarisa waatan Wajeer waatan meelba kaama jirto af Soomaali ku sheekaysanayaan markuu Stockholm tago Soomaalida qaar baa wali waxa haystaan jahliga iyo aqoon darrada waxay keenaysaa Carabka iyo Soomaaliga waa isku mid markuu Stockholm joogo ama Minnesota joogo ama wixii joogo waxay ku leeyihiin ilmahaygu waxaan af Suudishan kuma hadlaan waxay la tahay faan iyo farxad iyo weynaan bay la tahay af Ingiriiska ku hadlaan ilmahaygu way ka badayaan Ingiriiska af Soomaaliland kuma hadlaan waa ilmo khasaaray luqadda markii af Soomaaligu markuu luma diintii baa luntay waxaa lumay dhaqankii waxaa lumay hidihii waxaa lumay wax badan adduunyada dadka aqoon ku takhasusay waxay leeyihiin 5,000 oo luqadood baa dabar go'aysa dunida waa la qaylinayaa wixii cilmi la qaylinaya waxaa la qaylinayaa luqad luntay dunida aadanaha ifka saaran yaa fakhriyoobay hal luqada masaydu hadday lunto dunida fakhri ku dhacay waxaa lumay murti waxaa lumay maamaah waxaa lumay gabayo waxaa lumay aqli waxaa lumay cilmi waxaa lumay hidde waxaa lumay dhaqan marka luqaddu wax ciyaara maaha Soomaaliduna waa dad aad u hooseeya dhinacaas fahamka luqadda waxay u haystaan luqadda in laga tago waxa ku xiga diinta oo laga tagaa ku xigta diintuna way lumaysaa maxaa yeelay waheshigii baa lumay